تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا خيرك iyo tawfiiqda inuu waafajiyo ninka dhalinyarada ah adduunka wax badan baa sugaya gabadha sidoo kale 20 sano jirta 25 30ka wax badan baa ku sugaya adduunka oo aad u baahan tahay inaad sahay u qaadato sahayda waxa kamid ah waa sabirka ilaahay wuxuu leeyahay ya ayuha alladina aamanu istaciinu bis-sabri was-salaah kuwiina iimaanka laga helo waxaad kaashataan sabirka iyo salaada sabirka iyo salaada kaashada labada waa labada aad u baahan tahay salaada ilaahay markaad la xiriirayso ya rabbi ducadaada meesha ku jirto marka Allah subhanahu wa ta'ala tadarruca iyo dambidaafka aad weydiisanaysid salaadad ku dhex jirta sabirkana waa meeshadana uga baahanta Allah subhanahu wa ta'ala inaad ku sabirto masaa'ibta iyo qadarka iyo waxyaabaha kale fara badan istaciinu bis-sabri was-salaah kaalmeesta sabirka iyo salaada inna allaha ma'a sabirin meesha loo baahan yahay waxa weeye inna allaha ma'a sabirin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu macooda ahaaday kuwa sabra kuwa sabirka ku dadaala ayuu macooda ahaaday Allah subhanahu wa ta'ala ilaahi wuxuu leeyahay ya ayuha alladhina aamanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sabra oo wasaabiru oo waxa way ku si sabirka waxa way dhibaatada ama waxyaabaha kale idinku dhacayo waa raabitu wasaabiru isbirsiya wa raabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun yani si dhab ah isku qabsada oo xoog waxa way waxyaabaha dhibka aad adiga dareemaysid ku sabir sabirka walaalayaal wuxuu u baahan yahay in aad xoog badan saarto adduunka waxa aad kala kulmi doonto ilaahay wuxuu leeyahay inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab kuwa sabra ajrkooda waxay helayaan xisaab la'aan bay helayaan inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab la'aan ayaa aakhir helaysa ajrkaada walaalayaal sabirku waa da'bu saalihiin anbiyada iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo kuwa dadka khayrka ku sugan dhammaan waxay wax ku gaareen waa sabir waxa lagu gaaro waa sabir degdega wax lagu ma gaaro hadda darta ina ganacsi bilowdo hadda darta ina waxa way ganacsiga aad noqoto bilyaneer wax barasha bilaabaysa jaamacad iyo waxa darta ina meelaha aad marto si aad u hesho shahaado dhaqso ah oo aad u noqoto qof professor ah sabir bay u baahan tahay فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر سيدا كوا أولو العزم جاء صبرين الرسل إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم وحق بصدوا وأكته سولو جي وصو صفري وصو لباتوضي مكو يمد أو وادئة أو صحراء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أفرس الصلاة يصبرك مركز وصر صعبا rabbiyow anigu reerkii intaan dajiyay meel aan beer lahayn oo aan waxba lahayn ilaahu ku arzuq kuwa salaada oogana ka dhig nabi Muuse alayhi salaam baladkii uu joogaa laga eriyay waa uu baxay waa la dhibaateeyay dib badan ayuu la kulmay socod buu ku jiray inta ulul azmi min ar-rusul nabi nuux waad ogtihiin waxa uu ka maray qoomkiisa nabi ciisana sidoo kale نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ليلين شيخين معي سبرك صدح بوقف سمع الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله سبرك إن تكون صبرته على طاعة الله طاعة الله سبحانه وتعالى دعاء الله إن لو صبرنا أيضا الصبر كوار نوع كله daacada wata inaad qabato aad u soo kacdo aad sameeyso inaad ku sabirto inaad soo kacdo subaxii oo aad weesaysato oo aad laba rakacdood tukato oo salaadul fajr ah ma sahlana sabir ba u baahan tahay inaad soonto sabir ba u baahan tahay inaad sadaqa la baxdo sabir ba u baahan tahay الصبر على طاعة الله إلهي سبحانه وتعالى دعاديسا إناد ku sabirto marka koow aad ku dhaqaaqayso kadib daacada marka dhax gashana inaad sabirto ilaa aad ka dhameynayso
salaada markaad dhex gasho inaadan boobsiin oo aad sugto ilaa aad ka dhammaynayso. kadibna daacada inay ikhlaas kaa noqoto oo aad ku sabirto oo shaydaanka uu qalbigaada wax kala gelin. wasabru can macsiyati illaah, macsida alle subxana wa tacala inaan ka sabirno. xumaanta iyo waxyaabahaasoo kale inaanu ka sabirnaa loo baahan yahay. waa sax, qalbiga wuu rogmayaa markaad aragto gabar quruxsan. qalbiga wuu rogmayaa markaad aragto waxa way mandar nooc kale ah oo qalbiga xaggiisa loo jiidanayo. laakiin labada qof maxay ku kala duwan yihiin oo dhalinyarada ah? sabirka weeye. asabru على أقدار الله، أقدارت الله سبحانه وتعالى إن تكون صبرته وحيابها عذورها كدعايا الدنك ربك إلهي وحليه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وحنقول امتحان دوننا شيء من الخوف، عبسي، والجوع iyo gaajo، ونقص من الأموال iyo أموال xoolaha oo xoogaa ma aragtay nusqaan ay ku timaado، والأنفس iyo nafyaalka، والثمرات iyo miraha adduunka iyo barwaaqada iyo wax aad haysataa hoos u dhacayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku imtixaamayo. imtixaanka rabbi uu ku imtixaamayo wuxuu eegayaa inaad horumartay iyo inay ku sabraysay in kale. atasbiruun bal iska badaaye wajacalnaa bacdakum libacdin fitna, barkiin barka kale fidno uga dhignay. waa la isku dhici fidnada cadowga, fidnada dadka aqaaribta ah, fidnada kale. atasbiruun ma ku sabraysaan? waalidkaada ayaa alle subxaana wa tacaala kugu fidnaynaya, uu kugu adkaanaya. waalidka wax badan uu kugu adkaanaya, miyaa ku sabraysaa? waxa kugu adkaanaya qaraabadii kale, miyaad ku sabraysaa? waxa kugu adkaanaya qof kaloo saaxiibaad tihiin, miyaad ku sabraysaa? sabir baa loo baahan yahay. nin sheekh oo caalim ah baa waxaa lagu yidhi camalkee ugu rajaynaysaa alle subxaana wa tacaala inuu kaa abaalmariyo oo janno aad ku hesho? waa nin caalim ah oo waxa weeye cilmigiisana aad u sareeyo, taqwadiisana aad u sareyso. intuu aamusay wuxuu yidhi camal kale garan maayo, laakiin wuxuu yidhi ilaahay inuu sabirkay wax igu siiyan rajaynaya. sabirka waa maxay? salaan baa ii timid buu yidhi gabar indha shareeran. hebelow waan ku aqaan, waa nin la yaqaano sheekha. waxay tiri fidna xaggaada iga soo gashay oo aad baan kaaga fikirayaa. ilaahay baan kugu dhaarsho or aabahayga hebel weeye oo meesha fariistee u tag oo iga doon. gabadha indhashareer bay qabtaa. wuu tegey, odaygii buu u tegey, gabadhii buu ka doonay. gabadhii guriga markay soo gashay oo iska qaaday indhashareerkii, wuxuu yidhi waa gabar ilaahay subxaana wa tacaala un qurux aan siinin. uusan qurux wax qurux uusan siin. waa gabar indhaheeda wax ay ku jiraan. waa gabar foolxumada iyo khilqada xataa jirka oo waxa weeye aad waxa weeye u foolxun yahay. alxamdulilah, qof kastaba ilaahay baa khalqa. markaasuu yidhi markaan arkay aniguna arrinkii aan galay, ilaahay baan xisaabsaday sabir inaan ku sabro, ilaahayna ajar iga siiyo. 15 sano ayaan la joogu yidhi. 15 sano ayaan la joogay. wuxuu yidhi taa ilaahay dartiibaa u sameeyey, laga yaabaa inuu ilaahay wax igu siiyo. marka sabirka, reerka in lagu sabro, xaaskaada inaad ku sabirtid, gabadha inay ninkeeda ku sabirto. guri kasta jacayl keliya kuma dhisna, waxyaabo kaloo badan buu ku dhisan yahay. guryaha waxyaalo badan bay ku dhisan yihiin. gabadhuna haddaad dabeecadaheeda qaar aadan ku qanacsaneen ama quruxdeeda qaar aadan ku qanacsaneen, waxaad ka fiirisaa dabeecadaha kale. quruxdooda kale fiiri, akhlaaqdooda fiiri. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kugu bedelayaa khayr kaloo fara badan. sabirka aan ku dadaalno, aqdaarta allena subxaana wa tacaala aan ku dadaalno. aad baa u mahadsantii.